muuqaalada kala duwan kani waa maqaam muujinaya muunada iyo horumarka gabdhaheena Soomaaliyeed ay ka gaareen dhinaca waxbarashada. Maxadka Qura ayaa u istaagay isagoo maanka ku haya gabar waxbaratay inay tahay bulsho waxbaratay maadaama gabdhuhu ay aas ama lafdhabar ay u yihiin guryaha iyo jiilasha soo socda. Waxa uu u diyaariyay hanaan waxbarasho oo u gaar ah gabdhaha isagoona u soo saaray bulshada Soomaaliyeed gabdho far badan oo aqoon iyo asluub wanaagsan leh iyadoona aad ka dheehan kartaan hab muuqaalkooda. Maxadka Qura wuxuu udub dhaxad u yahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha isagoona garab istaag iyo bogaadin ka helayo culimada Soomaaliyeed. maxay gabdhuhu hadii wax la baro guri baa wax la baray qoys baa wax la baray caruur baa wax la baray gabar fiican waa guri fiicanna waa qoys fiicanna waa ummad iyo qaran fiican weey. Maxadka Qura waa macaahidii ugu horeysay oo tilaabadan ah in gabdhaha kaligood waxbarasho gaar ah oo ayaga kaligood ah oo shariicada la barayo in ay aasaasan waxaan isleeyahay waxay ka mid yihiin akhyaartii ugu horeysay ama culamadii ugu horeysay oo camalkan wanaagsan bilowdo. nimco weyn oo lagu farxana waxaa ka mid ah midaan maanta oo ah gabdhihii Soomaaliyeed oo diinka Islaamka u soo jeestay oo baranaya oo sanad walba ay soo takharujayaan qayb weyn oo lagu farxo. marka waa arrin farxad leh lagu farxan mudan. ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan kaloo aad ugu mahad celinaynaa kuna shukriinaynaa waxa weeyaan culimada ka soo shaqeeyeen ee aas-aaseen macadkaas u sabreen u dhabar adeygeen inay soo saaraan gabdho mas'uuliyadooda guda kara garanaya xaqa alle garanaya xaqa waalidkood garanaya xaqa ilmahooda garanaya xaqa ehelkooda garanaya xaqa muslimiinta garanaya cid walba waxay ka mudan tahay. waqti nabigu wax u dhigo oo uu wax u baro iyay lahaayeen haweenku saxaabiyaadka ridwaanullaahi calayhinna. marka haweenka muslimaadka waxaa qudwo u ah haweenkii saxaabada waxaa lama maarmaan ah inay ku dadaalaan waxbarashada sharciga ah si ay ictiqaadkooda iyo cibaadaadkooda u ansaxaan. jiilkii saxaabada urumay lahaayeen jiilkii taabiciyaadka urumay lahaayeen jiilkii taabiciin oo haween ah urumay lahaayeen. gabdhahan waa ummahatul mustaqbal waa hooyooyinkii mustaqbalka in insha Allah taala ay wax badan ka bedelaan oo barbaarinta ubadka ay ku barbaareen islaamnimada sida casriga ah ee psychologiyada ilmaha loola dhaqmana ay bartaan si ilmo wanaagsan oo u arka walaaltinimada iyo wax wada qaybsiga inay ilbaxnimo tahay ee aan u arkin isdilka iyo isnacaybku inuu yahay midkii horumar loo gaaray. adcinaya macad Qura oo kamid ah macaahidda magaalada ku yaala farqutiriska ah ee kulli aniga aan ka warqabo oo aan asxaab lahay kana mid ahay ardayda qalin jabisayna aad iyo aad ugu hambalyeynaya marka koowaad ilaahay waxa idin weydiinayaa cilmiga jidkiisa soo bilowdeen inuu ilaahay idinku kaalmeeyo. معاكم حمدي عبد الرحمن آدم طالبة من طالبات معهد القرى. أولا وقبل كل شيء الالتحاق بمعهد القرى يوم من الأيام كان حلم من أحلامي وها أنا الآن طالبة من طالباته ولله الحمد. أنا عايشة محمود علي كمد يا أرضيده كوح برتي معهد القرى كانت سوف فائدين بدن معهدك الحمد لله قبلها ولا عليها إنه وحى باقي إني معهدك إمادان سيح فائدان لأن جوار وحبرتي وبلشوا وحبرتي إن آد لو فائدة استان قبلها ولا عليها وباقي لهاي. After that my name is Ruqayya Abdurrahman and I am one of the students graduating from high school Qura and the fourth batch of graduates since the establishment of this school. School Qura is one of Islamic Sharia institutes in Mogadishu. Which specializes in girls and produce girls who are useful to society. dumarka oo wax la baraa waa bulshada oo wax la baray diinta oo si gaar ah loo baraana waa ummadda oo mustaqbalkeeda horumar loo horseeday.